Assalaamu calaykum. Waxaan wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran barahayga xiriirka bulshada meel walba dunida ka joogtaan. Kuna soo dhawaada muuqaal cusub oo aan kaga hadli doono sababtii madaxweynaha Argentina Alberto Fernandez ku diiday in uu qaabilo ama uu la kulmo ciyaartoyda xulka qaranka Argentina waliba iyagoo ku guuleystay koobka ugu qaalisan Koonfurta Ameerika ee Copa America kaasoo ay ku tartamaan xulalka qaranka dalalka 14 ah ee dhaca Koonfurta Mareykanka. balse inta aanan gudagelin barnaamijkeena ha hilmaamin inaad subscribe saartaan boggeena YouTube-ka sidoo kalena aad furataan jaraska ama gambaleelka si ay degdeg idinkugu soo gaaraan warbixinada cusub ee aan halkan soo gelino. Waxaan sidoo kale codsanaynaa in aad like inoo saartaan muuqaalkan. waraysi gaar ah oo uu madaxweynaha waddanka Argentina Alberto Fernandez siiyey Radio 10 oo ka howlgala gudaha dalkaasi ayaa waxa uu kaga hadlay sababtii uusan u qaabilin ama uga hortagi waayay ciyaartoyda xulka qaranka Argentina oo xaddii ku guuleystay Copa America markii ay gool iyo eber kaga badiyeen dhigooda Brazil. madaxweyne Fernandez oo arintaa ka hadlayay ayaana yiri waxaa la iga codsaday inaan xidigaha xulka Argentina kaga hortago garoonka Aziaza ee magaalada Buenos Aires laakiin waan diiday. waa inaan hawsheena qabsanaa ma doonayo in aan kubadda cagta u isticmaalo arrimaha siyaasadda. sidoo kale ma doonayo in loo fasirto in aan rabo in guushii ay gaareen xulka siyaabo kale loo isticmaalo. madaxweynaha dalka Argentina oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri waxaan haysanaa waqti nagu filan oo aan ku qaabilno ciyaartoyda xulkeena. shacabka reer Argentina oo dhan waxay siiyeen farxad weyn. aad baan ugu mahadcelinayaa. waxa uu sheegay madaxweynuhu inuu aad uga walwalsanaa kulankii finalka Copa America ee Brazil. hase yeeshee waxa uu ammaanay shaqadii wanaagsaneyd ee uu qabtay tababaraha xulka Argentina Lionel Scaloni. sidoo kale madaxweynaha waddanka Brazil Jair Bolsonaro ayaa khamiistii sheegay in xulka dalkiisa ee Brazil ay 5-0 kaga badin doonaan xulka Argentina. waa markii ugu horeysay oo muddo 28 sanadood ah oo ay xidigaha Argentina ku guuleystaan koob weyn halka sidoo kale uu koobkan noqonayo koobkii ugu horeeyay ee weyn ee ciyaaryahan Lionel Messi u qaado xulka Argentina. waana koobka labaad ee ka maqnaa qaanada koobabka Lionel Messi marka laga reebo koobka adduunka. garoonka Maracana ee magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil ayaa sidoo kale xusuus gaar ah u ah Messi maadaama uu yahay isla garoonkii uu xulka qaranka Argentina kula ciyaaray dhigooda Jarmalka ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobkii adduunka 2014 koobkaas oo ay ku guuleysteen Jarmalku markii ay ku adkaadeen gool iyo waxba. waxaana la xusuustaa in goolkaasi madiga ah ee uu ku adkaaday Jarmalku uu dhaliyay 30 daqiiqo ee lagu kordhiyay kulankaasi markii barbardhac gool la'aan ah la isku mari waayay 90 daqiiqo gaar ahaan daqiiqadii 113aad ciyaaryahan Mario Götze. dhanka kale warbixin maanta oo Talaado ah ay shaacisay saxaafadda dalka Spain ayaa waxaa lagu sheegay xidigaha u sharaxan abaalmarinta kubadda dahabka ah ee Ballon d'Or xilli ciyaareedkan iyadoo la tilmaamay in Lionel Messi uu ugu cadcad yahay laacibiinta ku tartamaya xilli ciyaareedkan abaalmarinta Ballon d'Or. wargeyska Isbaanishka ah ee Mundo Deportivo ayaa qoray in guushii taariikhiga ahayd ee xulka qaranka Argentina ka gaaray xulka Brazil kuna guuleystay Copa America in Lionel Messi uu noqday laacibkii ugu wanaagsanaa iyo dhaliyihii tartankaasi ay shakila'aan xagga sare ka gelinayso inuu xilli ciyaareedkan markiisii 7aad ku guuleysto kubadda dahabka ah ee Ballon d'Or. inkastoo Messi uu xilli ciyaareedkii dhammaaday ku guuleystay koobka Isbaanishka laga dhigay ee Copa del Rey sidoo kalena uu qaaday gool dhalinta horyaalka La Ligaha haddana guushii Copa America ayaa sare u sii qaaday rajada ah in Messi uu markii 7aad ku guuleysan karo kubadda dahabka ah ee Ballon d'Or sida uu tilmaamayo wargeyska Mundo Deportivo ee ka soo baxa dalkaasi Spain. warbixinta ayaa intaa ku daraysa inuusan jirin ciyaaryahan xilli ciyaareedkii hore gaaray guulo waaweyn oo uu kaga sarreyn karo xidigaha kula tartamaya kubadda dahabka ah. waxaana wargeysku uu sheegay in ninka keliya ee Lionel Messi kula tartami kara kubadda dahabka ah uu yahay xidiga qadka dhexe ee xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda Chelsea ee N'Golo Kante maadaama uu Chelsea u horseeday hanashada koobka horyaalada Yurub isla markaana uu ahaa xidigii ugu fiicnaa ciyaartii kama dambaysta ahayd ee UEFA Champions League. inkastoo Kante iyo xulkiisa Faransiisku ay xilli hore isaga hareen tartanka Euro 2020 haddana waxa ay jariirada Mundo Deportivo ay qortay in xidigan qadka dhexe ee Kante aan laga saari karin liiska musharaxiinta abaalmarinta Ballon d'Or. xidigaha kale ee ay dhici karto inay ka soo muuqdaan liiska musharaxiinta kubadda dahabka ah ee xidiga ugu fiican adduunka
ee wargeysku uu xusay waxaa ka mid a laacibka kooxda PSG iyo xulka qaranka Faransiiska Kylian Mbappe inkastoo uusan ku guuleysan midkoodna horyaalka Faransiiska iyo koobka horyaalada Yurub isla markaana uu khasaariyay goolkulaadkii Faransiisku ku haray ee uu ugu soo gudbi waayay nusdhamaadka tartanka Euro 2020 haddana wargeysku waxa uu tilmaamayaa in aan musharaxiinta laga saari karin. waxaa kale oo ka mid ah ragga carabka lagu dhuftay inay ku jiraan liiska tartamayaasha abaalmarinta Ballon d'Or ciyaaryahanka Robert Lewandowski oo weerarka uga dheela kooxda Bayern Munich iyo xulka qaranka Poland waxaana Lewandowski uu sanadkan ku guuleystay kabta dahabka ah ee goolalihii ugu goolasha badnaa horyaalada qaaradda Yurub halka naadigiisa Bayern Munichna ay hanatay horyaalka Bundesliga Jarmalka inkastoo xulkiisa Poland aysan soo gaarin nusdhamaadkii Euro 2020. goolahayaha xulka qaranka Talyaaniga Gianluigi Donnarumma oo xulkiisa Azzurri u horseeday ku guuleysiga koobka qaramada qaaradda Yurub isla markaana noqday xidigii ugu fiicnaa tartankaasi kadib markii kulankii kama dambaysta ahaa xulka Ingiriiska ay kaga adkaadeen 3-2 oo rigoorooyin dhowr ah badbaadiyay ayaa la isku raacsan yahay inuu ku jiri doono liiska ciyaartooyda u tartamaya kubadda dahabka ee Ballon d'Or halka laacibiinta kale ee wargeysku uu sheegay inay Messi kula tartami doonaan kubadda dahabka ah ay ka mid yihiin Cristiano Ronaldo oo u ciyaaray Juventus iyo xulka Portugal oo ku guuleystay gool dhalinta tartanka qaramada qaaradda Yurub 2020 Pedri Gonzalez oo ka tirsan xulka qaranka Spain isla markaana hantay abaalmarinta da'yarkii ugu fiicnaa tartanka koobka qaramada qaaradda Yurub ee Euro 2020 Kevin De Bruyne oo isna Manchester City kula guuleystay horyaalka Ingiriiska halka uu ka mid yahay raggii City soo gaarsiiyay finalkii UEFA Champions League. Neymar Jr, Karim Benzema, Harry Kane iyo Jorginho ayaa iyaguna ka mid ah musharaxiinta u tartamaya abaalmarinta kubadda dahabka ee Ballon d'Or oo wargeysku qormadiisa ku tilmaamay. intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa warbixintii aan ka diyaarinay xidigaha Lionel Messi kula tartamaya abaalmarinta Ballon d'Or iyo sidoo kale sababtii madaxweynaha waddanka Argentina uu u qaabili waayay xidigaha xulka qaranka Argentina ee uu hogaamiyo Lionel Messi kuwaasoo sanadkan hantay Copa America. intaan warbixin kale idiin soo diyaarin doono waa anigoo ah Harun Yusuf Qasaaro idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.